munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta ururka dhalinyarada gobolka Banaadir oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay Maama Zahra Maxamuud oo ahayd hooyo xanuunsan oo loo qaaday dalka Talyaaniga qaliimo dhanka caafimaadka ah kadibna dib ugu soo laabatay dalkeeda Soomaaliya ugu horeyn gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa ka hadashay Maama Zahra caafimaadkeedii dibadda loo qaaday iyo sidoo kale hay'adihii ka saaciday Zahra Maxamuud oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo bukaan loo maaragtay iyadoo xanuunsan ku dhawaad 30 sano dalka dibadiisa loo qaado wadanka Talyaaniga hay'adda Ambuba iyo ururka haweenka gobolka Banaadir wada shaqeynaa ka dhaxaysa codsigeeni iyo ayagoo ka jawaabaya baahida bukaanka alxamdulillah waxa la geeyay wadanka Talyaaniga waxay gashay qalitaan muddo 3 bilood ay maqnayd maantana dalkay dib ugu soo noqotay waxaan rabaa inaan maaragtay gudoomiyaha hay'adda Xaawo محمد حسين iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo kulli inaan u mahad celiyo maxamed sheekh xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo ahayd hay'addii gacan siisay Maama Zahra ayaa isagana dhankiisa ka hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin in ay dib ugu soo laabato dalkeeda isagoo dhiirigeliyay in dadka bukaanada ay xanuunsanaya marka dalka dibadiisa caafimaad loogu qaado ay dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo Soomaaliya Zahra waxa uu dadaalnay in caafimaad dibadda noo hesho إلهي دينكيس ونوفذي أيضا نجمع عيبين أو بلانتي أنكم وقعدنا ونوفذ شيء ونوفذ شيء وضن كذا نقصنا قصي ده تكون محاربة مركز وضن كذا واحد يتعود واحد نقولنا كأن ثالث درنا عاوننا كي كرو عافنا طبعا عن الله نعافيه إلهي دينكيس ساسن كرة الدار منا gabagabadii basma caamir shakeyti oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay bogaadisay Maama Zahra iyadoo caafimaad u rajeysay waxaana sidoo kale ay dhiirigelisay in bukaanada Soomaaliyeed ee xanuunsanaya marka la caawiyo ee dalka dibadiisa loo qaado ay kalsooni muujiyaan isla markaana ay dalkooda dib ugu soo laabtaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay'adda Kuba hooyada dhallaanka iyo daryeelka hooyada dhallaanka oo u istaagtay in ay gacan nagu siiso sidii loo daaweyn lahaa ama dalka dibadiisa caafimaad dalka dibadiisa ugu baahneed ee u qaadi lahaayeen hay'addaasiti ayadana xaawo walaashay xaawo waxaan ugu mahad celinaa iyadoo nagu ceebeynin sidaad ogtihiin dalalka marka dibadda la aadayo siiba dalalka Yurubta fiisooyinkeeda dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed siday uga adag tahay taasi oo keentay dadka Soomaaliya markay baxaan inay tahriib aadaan laakiin ay Zahra ay sameysay inay dib ugu soo noqotay dalka iyadoo caafimaad qabta ay muujisay inay dalkeeda meel u dhaantay aysan jirin waxay u tagtayna ay tahay caafimaad annagana waxaa noo fududaanayo dad badan oo fursado u heli lahaa dalka dibadiisa caafimaad u heli lahaa hadday Zahra siday u soo noqoto annagana waxaa noo fududaanaa inaan caawino dadka ku dhibaataysan dalka gudihiisa hay'adda iyo hay'ado kale badanna ay fursad u heli karaan inay qaadaan laakiin mar haddii qofka haddii la qaado uu soo noqon waa hay'addaasiti ama safaaraddaas marka fiisada dawladda ay ka doonto in ay xogaa culays ay ku imaanayso bukaankeena Soomaaliyeed oo dalka wax loogu qaban karin ilaahay mahadiisa waaye alxamdulillah waxaan tagi doonaa aan soonan dalka dibadiisa aan u baahneen Cabdirasaaq Cumar VOS TV Muqdisho